gabadhan waa qofka kaliya ee ka badbaaday diyaaradan rakaab ee Lanza Flight 508 oo iyadoo hawada ku jirta biriq ku dhacday xilli ay u soo dhamaatay xafladeeda qalinjibinta. maalin farxadeed ayay u ahayd balse murug ay isku bedeshay. maalmo badan ayaa la la'aa hooyadeedna shilka diyaaradda ayay ku geeriyootay. sanad kadib ayaana la helay meedkeeda, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa sida loo helay iyada iyo sida ay u geeriyoodeen dadkii diyaaradda la socday iyo habka ay ku badbaaday iyada. muuqaalkan 3 qayb ayaan u kala qaadayaa. waxaan ahay Juula Shaakir, aan u gudagala muuqaalkeena maanta. tani waa gabadha kaliya ee ka badbaaday diyaaradda rakaab siday oo sanadii 1971 burbur xoogan uu soo gaaray. waxaana lagu magacaabaa Juliana Kopke. sawirkanna waa iyadoo 17 sano jir ah, kanna waa hadda oo ay 68 sano jir tahay. waxay ku dhalatay caasimadda dalka Peru ee Lima. taariikhda gaarka ah ee gabadhan muhiimad gaar ah ma siinayo, balse kaliya shilkii dhacay oo ay ka badbaaday iyada sanadii 1971. waxaana iska dhalay aabbe iyo hooyo biologistayaal ah. waalidkeedna waxay ka tageen magaalada Lima ee dalka Peru si ay u aas-aasaan xarun cilmi baaris ah oo ku taala kaymaha Amazon. Juliana waxay noqotay ilmo keenta ku jira muddo fog, waxayna baratay farsamooyinka badbaadada. Julia muddo ayay wax baranaysay, kadibna waxaa lagu wargeliyey in ay ka soo qayb gasho imtixaankii ugu dambeeyay ee dugsiga sare oo lagu qaadayay magaalada Lima. waxaan horey u sii raacday hooyadeed Maria si wehel ay ugu noqotay gabadheeda 23 Diseembar 1971. imtixaankii markii uu soo dhamaaday gabadha maalmo kadib waxay ka qayb galeen xafladda qalinjibinta. si qurux badan oo reereen ayayna ku soo dhamaatay xafladii. hase yeeshee markii xafladda u soo dhamaatay waxay isku diyaariyeen safar kale oo ku aadi lahaayeen kaymaha ay ku noolaayeen, maadaama hooyadeed iyo aabbaheed kaymaha ay ku lahaayeen xarun cilmi baaris ah. qaybtan waxaan kugula wadaagayaa qaabka ay u burburtay diyaaradda Lanza Flight 508. si walbaba waxay 2 boos ka kireysteen diyaaraddan. safarka diyaaradda ayaana la bilaabay. diyaaraddii ayaana ka kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Lima. hawada ayay gashay diyaaradda oo hawada ku jirta. dadka diyaaradda saaran oo faraxsan kuna taamaya in si nabad ay ku gaari doonaan qof walba meesha uu rabo ayaa hal mar diyaaradda oo hawada ku jirta dulmareysana kayma roobeedka Amazon ayaa waxaa isbedelay jawiga guud ee dalkaasi. gugac ayaana bilowday, hawada oo dhanna roob ayaa xiray. diyaaraddii rakaabka saarnaana waxaa ku dhacday biriq xoogan, biriq aad iyo aad u xoogan. diyaaradda ayaana bilowday in qayb ay u kala dhacdo. dadka qaarkood ee diyaaradda saarnaana waxay haysteen baarashuud ay isticmaalayeen, halka dadka qaarkiisna aysan haysan. balse Juliana iyadana baarashuud ayay haysatay, balse dhibka ugu weyn oo haystay ayaa ahaa in ay kursiga suunka isku dhijisay, in muddo ahna ay la tacaalaysay habka ay kaga baxsan lahayd. Juliana waxay ka soo dhacday diyaaradda, gacanta ayaana jug ka soo gaartay, waxayna ku dhacday meel kayn ah oo hood ah. qof kasta oo diyaaradda saarnaana meel ayuu ku dhacay. 14 qof oo ka mid ah dadkii diyaaradda la saarnaa ayaa iyaguna hoodka ku dhacay, balse iyagoo badbaadin sugaya ayay geeriyoodeen 14 qofood. Juliana maadaama ay kaymaha wax badan ka taqaanay, muddana ay kuna nooleed aabbaheed iyo hooyadeed, 9 maalmood ayay hoodka ku jirtay oo la la'aa raq iyo ruuxba. cayayaano aad u halis badan ayaana gabadhan ka qaniinay gacantii, taasoo dhaawac halis badan gaarsiiyey iyada. intii ay kaymaha ku jirtay iyada ayaa isla tacaalaysay oo xaaladdeeda caafimaad isdabaraysay, cayayaanadana iska difaacaysay, gargaar bini'aadanimona isku fidinaysay maadaama ay wax ka taqaanay gargaarka iyo sida loola dhaqmo cayayaanada. 9 maalmood ayaa la la'aa, kadib ayaana la helay gabadhan. gargaar degdeg ah ayaana loo fidiyey. durbadiina waxaa loola cararay isbitaal si xaaladdeeda caafimaad halkaasi loogu baxnaaniyo laguna daweeyo. isbitaalka ayaa muddo lagu baxnaaninayay. sanad kadib bishii January 1972 ayaa la helay meedka hooyadeed. Juliana aad bay u murugootay maadaama ilaaad ay sugaysay akhbaarta hooyadeed, nolol ama geeri. dhammaan dadkii la saarnaa diyaaradda oo idinla way wada geeriyoodeen.
arrintaasna waxay ku noqotay naxdin iyo shoog. Juliana hooyadeed waxay ka mid noqotay dadka diyaaradda ku geeriyooday. sanad kadib ayaana meedkeeda la helay. gabadhan markii dambe waxay u guurtay dalka Jarmalka, halkaas ayana ka heshay baxnaano buuxa. ugu dambeynna waa ay bogsatay. dhacdadaasina ilaa iyo hadda way xasuusataa, waxayna mar ay hadashay ee sheegtay in ay haweenada qaar ku qarowdo qaabkii diyaaraddaas ay u burburtay, dadkii saarnaa dhibaatada soo gaartay, iyo murugta ugu weyn oo ah hooyadeed dhibka gaaray. hadda Juliana waxay noqotay biologiste, gabar aqoon leh, wax baratay, waxayna ku nooshahay dalka Jarmalka. sawirkan waa markii ay yareed 17 sano jirna ahayd, kana badbaadaysay burburka diyaaradda ee lagu magacaabo Lanza Flight 508. kanna waa hadda oo ay tahay 68 sano jir, wajigeeda sida ka muuqatan ay tahay qof da ah. qofka kaliya ee ka badbaaday diyaaradda Lanza Flight 508na waxay ahayd iyada. bal qiyaas, adigoo kaliya ka badbaaday musiibo weyn, sidee buu qalbigaaga noqon lahaa? sidee buu dareenkaadu noqon lahaa? xoogaa haddii aadan ahayn qof muslim ah, ama qof muslimna haddii dhibaatadaas aysan gaari lahayn, qofka ugu badan murug ayay wajihlayeen. laakiin haddii aad tahay qof muslim ah, waxaad ku qancaysaa qadarta Rabbi iyo in wax walba ay qoraal ay yihiin. muuqaalkii maanta aan kaga hadlayay gabadhan intaan ayaan kusoo koobayaa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. tani muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan Allah.